وأنا ونكسن ذلك بالضبط يلمل ولا جوكتان برتن وبرتا فيسبوك أنا كل هاي أشرف عبد الباسط نيوز دابض هدي أتمركا كوجوريس فيسبوك يقعد صبوخته فضلا لايك صار أو فلو له صاحب بدنا إيجارسي أو شير جراي ورك عيارها ربا إن هالكان مركا كوسو كوبا أو مانتا كل ما ذو قد بيجي بريمير ليجا يلا عياريا كلمة أنا زاريدا دالكا سيتالياني كل ما حسب بدنا يأجره كوحلا كوبا عكت مانشستر سيتي يدقى ليفربول أيانا هالوقت سوقل ياسي كوبكا لو قلنا عيو متكوننا وكوبكا سلطة هذا بعد يعني أجنو كل ما ذا مركا سيئات كوحيسها بدل ليفربول وحيكور تجيسا وولفيس أو طبعا لافيلي إن تاي نادي مركا السيفودد أو قصة تلعب سكرتو ليفربول أو بدل تصادم ميني محمد صلاح يو لويس دياس انتبع لكن وركو حجراء ستيفن جيجيرا يوريبا فيليبي كوتين أو وعد كومرا إن كوحدة كوباتا عكتا مانشستر سيتي أي كوبكا نفسين دونان سي قاعد تقول ساران كوحدة دي هوري ليفربول مانشستر سيتي waxa la leeyahay hadii barbaro ay gasho oo ay kooxda kubadda cagta Liverpool ay badiso waa ku deysayo Man City koobkaas waa laga tagay Pepna waxa ay noqon doontaa musiibo weyn maadaama uu Champions League isaga soo haray oo kaliya tartankan uu ku soo haray hadii laakiin Liverpool ay barbaro gasho ay Manchester City na barbara gasho dabcan waxa markaasi koobka si sahal ku qaadan kara Manchester City maadaama farqiga goolashan ay meesha taalo kulanka laakiin waxay jirtaa hadii Manchester City kufto Liverpoolna kufto oo laga wada badiyo labada dhinac Manchester City ayaa halkaas dhibic ku qaadi karta laakiin waxa la leeyahay caawa Pep Guardiola xidiga uu haysto uu la soo shirtagi karayo waxa laga sheegayaa warar markaas aanan fiicnayn oo markaa xitaa waxa laga yaabaa leeyahay marka qaar kulamada halka ay soo gaarto Pep Guardiola uu isku dhaxyaacayo wuxuu sameeyaa inaad shax bedel iyo shax noocaas ah sameey kan sameey ay sabab u keeni karto laakiin Klopp shaxdiisu waa degan tahay Klopp waxa laga barayaa kulanka kii koreeyay Premier League oo ciyaaray inuu fariin cad u diray Manchester City hogaamiyahooda Pep Guardiola wuxuuna wacd ku maray in koobka laga dejin doono garoonka ay Liverpool leedahay ee markaasi Marseillaise si kasta ay noqoto Anfield Road hadii koobkaas la geeyo Manchester City waxa markaasi Pep Guardiola u noqon doona dhibane kooxda ayaa u noqon doonta sababtoo ah Champions League ay si sahal uga soo hareen iyadoo marka ay caddahay in ay soo bixi kartay kooxdiisa Manchester City ayaa waxa la leeyahay Pep Guardiola isaga shax ciyaareedkaasi isaga ciyaaray oo goolal markaasi inabaan caadahay in daqiiqada la filayn Champions League oo imaaday marka tan waxa leeyahay Aston Villa waa adag tahay Aston Villa koox la yareysan karo ma ahan oo waa adag tahay ee dhici doonta in Philippe Coutinho uu maanta kooxdiisa garab weynsiyo kaliya isaga ma aha weeraryahanno Hannes waa watan Aston Villa naftirkooda waxa weeye koobka marka laga hadlayo Premier League dhiig Liverpool soo galay maanta kale waa Liverpool aysan yihiin laakiin lama saadaalin karo Pep Guardiola nasiibkiisa ayaa bixin doona caawa hadii uu shaxdiisa ku ciyaaro laakiin Liverpool waxa leeyahay boqolkiiba 99 waa ay badin kartaa Wolves waa ka adkaan kartaa Klopp wiilashiisana amaan buu hubiyay waxa waa xidiga markaasi dabcan muhiim u ahna Champions League oo dhiganaya laakiin waxa ugu muhiimsan koobka caawa wala kala soo gabagabeenayo marka waxaad ogaataa hadii Manchester City kufto ay kooxda Liverpool badiso Manchester City waa ku deysay koobkaasna de sanad dambe u tartami doona taniga hadii aan iimaanana kooxda kubadda cagta Internazionale koobka sanadkan waxa leeyahay inaga dib u soo laabanaya comeback sameynaya qaadi doona AC Milan iyadana waa kulan adag sida Liverpool iyo Man City u kala baxayna AC Milan u kala bixi doonaan ciyaartoodan hal waqti soo galaysa hey Man City iyo Liverpool sida isugu hayaan garbaha ay isugu hayaan kooxaha Inter iyo dhigooda AC Milan kulankana waa adag yahay dib weeye AC Milan hadii adkaato waa ku deyso koobka ayada qaadaysa xitaa hadii Inter adkaato AC Milan adkaato AC Milan koobkaasi dafaysa waxay noqon doontaa 12 sano kadib inay AC Milan ay hanato horyaalka Serie dalkaas Talyaaniga oo kooxdii markaasi madax taagneed ee ugu madax fiiqneed koobka sanadii xigxiga iska qaadanaysay Juventus sanadka waa laga tuuray Trenko iyadaba kaalmiya afraad iyo saddexaad soo ceersanaysa sadarta marka AC Milan maanta waxay u dabaaldegi doontaa 12 sano kadib inay hanato horyaalka Serie dalkaas Talyaaniga waxaanu noqon doontaa maalin kale oo cajiib ah Champions League-na xaadir ay tahay oo xilciyaareedka soo socda waa la arki doonaa laakiin Internazionale xidigahooda waxa leeyahay waxay wacad ku mareen iyaguna inay marka doonayeen ku adkeeyaan koobkan ay hantaan Lautaro Martinez xidiga xulka qaranka Argentina xidiga halisa xidigan
wuxuu isaga dhankiisa iyo waliba ciyaartooyda qaar ku wacad mareen baa liin adkaan doonaan kulamada markaasi ay maanta ciyaarayaan haddii laakiin ay dhacday Milan inta ka loo dhigo ay badiso Inter waa ku daysay koobkaas Inter qaadaysa